xeebta Ceelmacaan berihii hore oo muddo 14 sano ka hor ka shaqeyn jireen dekadii oo dabiiciga ahayd berihii inay banaanka soo koreen banaankii aan laga qaadi karin hay'ad qaada ama dad qaada aysan lahayn berihina ay dhibaato dad u geeyaan doonyihi yar yar lagu shaqeeyo badaha kalluumaysiga lagu shaqeeyo ay dad dhib badan u geystaan oo dhaawacaas oo tiro badan dhowr dooman ku jajabtay oo wax naga caawina aysan lahayn dhibaatada ugu weyn horta ugu jirta meesha midaas waa هلا mudanayaal iyo marweyn waxaa socda ololaha qiimo jabinta sanadka cusub ee Nilis Furniture Osoy Group in ka badan 30 shay oo qiimahooda la soo jabiyay ayaa kugu diyaar ah badda waa buuxdaa markay buuxdo oo biyaha kor u aado doonyihi xeebta laga soo riixay alaaba la saaraa markii alaabta la saaro hiirkii waxa isdagaalaa iyo doonyihi raggi hiirkii intuu na soo dafo uu birtan ugu geenaa annagana awood ma u hayna badda inaan iskaaga dhicino birtan inaan iskaaga dhicino birta bir meel taala waayo oo baawurkeedana weyn yahay oo markab haafkiisa ah iyo sactaro badanaa meesha yaalin waxaan u baahan tahay in la qaado bere taagtaagan waayo taasaa ugu dhibadan taasna waxay u baahan tahay in la faago cagafyo loo keeno makiinada loo keeno la faago la bixi banaanka la geeyo taasay u baahan tahay tabarna loo mahay annagana tabar uma hayna nimanka gateena biraha tabar uma hayaan Ceelmacaan horta muddo badan ayay jirtaa aniga laakiin daada aan jiro ka hor waa sii jirtay aabayaashan iyo waxa ka kalluumaysan jireen iyo awoowayaashayni ma fahanti magaceeda waa haysi jiray laakiin leefaan hadda anaa ku nool fadhiga Lavera waa 995 pound oo kaliya miiska qadada 299 oo kaliya miiska qadada ee kala baxa waa 69 pound oo kaliya wallahi Ceelmacaan horta waxa la dhigi jiray marka hore saa u maleenayo malabla la dhigi jiray ceel malabla la dhigi jiray ma fahanti deegaan nimana deeganaan jireen kalluumaysata ah deexana waa ahayd kadib ceelasheeda aad iyo aad ay u macayeen biyo macaan badan ay leeyihiin magaaladan horta laba shay waaye waa dekad horta oo dabiici ah waaye ma fahanti wixii la rabaa lagu deji karaa wixii la rabaa la keensi karaa midda labaad waa kalluumaysato waa meesha ugu fiican xeebta ugu fiican lagu kalluumaysto oo Soomaali ka mid ah ay ka mid tahay inaad wax badan ka ogaato ololaha socda soo booqo bartayda Facebook kadibna riix meesha ay ku qoran tahay December campaign 48 bilood interestigu waa free alaabtadana si bilaash ah ayaa gurigaaga lagu keenayaa